بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا صباح وناكسن meel kasta oo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan soo gudboon doonaa ama falanqeyn doonaa kulmadii xalal dheelay oo aad iyo aad xamaasadooda u sareysay kooxda Liverpool iyo Manchester City iyo kooxda Arsenal oo guul gaaray waxaan soo gudbin doonaa saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto channel-keenan fadlan naga ilaawi inaad subscribe noo saarid oo na ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa si awood ku soo dhaftay kooxda Forest waxaana ugu raysay 6-0 kooxda Manchester City oo sanadkan dardar xoog leh soo gatay ciyaaryahanno tayo leh oo hogaaminayo laacibkooda dhawaangalka ah ee Erling Haaland ayaa waxa uu dhinayaa saddexdeedii labaad ee horyaalka Premier League oo isku xigta alla ninkan muxuu sanadkan ku soo wadaa horyaalka Premier League sanadkan nuuga soo bedeli doona lagu magacaabo Erling Haaland waxaan ognahay inuu yahay ciyaaryahan tayo leh ciyaaryahan shanta inta la dhalay horyaalka Premier League 9 gool buu leeyahay waa ciyaaryahan hogaaminaya goolasha horyaalka Premier League waa ciyaaryahan tayo leh waa ciyaaryahan mar walba gool dhalin kara mar walba gool laga filan karo laacibka lagu magacaabo Erling Haaland oo laacib awoodiisa aad u sareyso maadaama la arkay goolashiisa iyo tayada uu ku leeyahay dhammaan horyaalka Premier League waxaan moodaa ninka inuu si inaba caadi u dardari doono dhammaan laacibada difaaca uga ciyaara dhammaan kooxaha horyaalka Premier League waxaan awoodaa mar walba inuu gool dhasho laacibkan ayaa waxa uu yahay laacib ay soo dhawaan soo gateen naadiga Manchester City waxayna ka soo bixiyeen lacag 60 milyan ah asagoo isugu soo tagay kooxda lagu magacaabo Borussia Dortmund ee ka dhasha horyaalka Bundesliga marka saaxiibayaa laacibka lagu magacaabo Erling Haaland waa ciyaaryahan mar walba gool ku dhalin kara وين كوفة مانشستر سيتي مرة هي سنة waa لاعب كل جمعة إلى هالاند خسارة واي عده كذا عد كو عند عنق دمجده ما دام لاعب كان وليه لاعب فرسمه مضح يلوق يوميل والبقول لينكره بونية مركو بونه هسه كودا كودجية جونكره لا ذكره أردكره لاعب طيو حوقي وحول صدر سوي لاعب كل جمعة إلى هالاند هذا مانشستر سيتي له أدي عيبه فائدة waxay moodaan saddex kulamadii laga dhalay horyaalka Premier League kulli inuu fakinayo ama kulli uu ahaa ninka dhirtiraad ku ah kooxda lagu magacaabo Manchester City waxaana uu laga filan karay wax weyn ayaa laga filayay laacibka lagu magacaabo Erling Haaland laakiin wixii laga filayay wax ka si weyn ayuu sameeyay laacibka lagu magacaabo Erling Haaland waana laacib Liverpool ay mustaqbalkeeda jaayadeeda dambe ay wax badan lagu saadaalin karo waxaana muddo sanadkii saddexaad ee horyaalka Premier League in ay u caddahay kooxda lagu magacaabo Manchester City maadaama ay tahay awood ku socda waxay ku jiraan kaalinta labaad ee horyaalka Premier League waxaana hogaaminaysaa shanta gool ee soo dhaafay horyaalka Premier League kooxda Gunners ee Arsenal laakiin loo maleynayo inay Arsenal hoggaanka sii hayn karto maadaama Arsenal ognahay inay kooxda tahay oo kooxdu ah koox mar walba labada kulan iyo saddex kulan ugu horeysa badisa laakiin waxa loo maxkaminayaa in kulmo soo socda ay isbedel doonaan koox badan ay ka jirto sida Arsenal sida Chelsea naadiga lagu magacaabo Manchester City Liverpool waxa muddo inay ka jirto laakiin Arsenal sanadkan waa kacsan tahay meel fiican in gaaran waa laga yaabaa ay ka soo qayb gasho Champions League sanadka dambe marka wax badan ayaa horyaalka Premier League isku bedelay kooxii waaweynaayo dhan oo adkaa oo weligoodii aad looga bixi jiray horyaalka ayaa sanadka gadaal iyo cagriix ku jira halka kooxda Arsenal iyo Manchester City oo waayihii dambe ilaa 2015 xoog awood ku muujinayay kooxda horyaalka Premier League sanadkan dadar xil ku bilowdeen markaas waxaan eegi doonaa kooxda kubadda cagta Arsenal iyo kooxda lagu magacaabo Aston Villa oo xalay awood iyo muqaweyn aysan ku soo bixin kooxda Arsenal maadaama Arsenal gool ay loo rabnay laga daba keenay haddana hal gool oo qura ku reesay Arsenal waxa wada sanadkan inay nasiib ay ku socoto maadaama ay hal iyo eber iyo waxaas aysan wax lagu dhigi karo ama wax lagu badbaadi karo aysan ahayn sida Arsenal haday firdhin lahayd sida goolasha Manchester City oo kale cimad wala iska tuur lahaa laakiin hal iyo laba lagu reynaa hal iyo kuna ka dawaa weynayo adaan weynayo marka Arsenal ku xabadan waa dhanta xaqiiqdi iyaan las adkeen
kooxo badan way dhaantaa. waxay dhaantaa Chelsea bay dhaantaa, Liverpool bay dhaantaa, Manchester United waa dhaantaa, Tottenham waa dhaantaa, wax aysan dhaamin aan Manchester ahayn kulli waa dhaantaa. waxaan ognahay kulankii Manchester City lagu dhigay barajada ee kulankaasna labada gool ay lumisay inay Arsenal league ku hogaaminayso horyaalka Premier League 5 kulan ee soo dhaafana 5 bay bedesay Arsenal. marka Arsenal waxa la dhihi karaa inkastoo aysan naadi weyn oo tayo leh ama awood leh aysan ku aadin, laakiin wax weyn ayay sameysay booliyaal badan oo xabiisana way soo dhashay aan dhihi karaa kooxda Arsenal. laakiin Arsenal loo badan ma inay sii haysan karto hogaanka horyaalka Premier League maadaama ay tahay kooxaha waaweyn u jilicsan ay tahay oo mar walba aad moodid in kooxaha waaweyn ay aad iyo aad ugu dambeeyso sida Liverpool iyo Manchester United iyo Chelsea iyo aysan iska dhicin karin. laakiin waa koox sanadkan maxmo Arsenal. marka xalay Arsenal kooxda lagu magacaabo Aston Villa waa dirtirtay oo waa ku durdurisay. marka wax badan ayaa laga filan karaa horyaalka Premier League sanadkan in wax badan isbedel doona ayaa la maleynayaa, halka kooxda Manchester City aan la celin karin. لاعبيال waxa weeyna kooxda lagu magacaabo Liverpool oo xalay ku baxsay si dirqiya markii ay waqtigii ugu dambeeyay ciyaarta ay ka takhalusay kooxda lagu magacaabo Newcastle. marka kulankaasna wuxuu ahaa kulan aad iyo aad ugu muhiim u ah kooxda Liverpool maadaama Newcastle oo ahayd koox dardar xoog leh ku bilaabatay awood sanadkan la soo dhisay sanadii ugu dambeeyay maadaama kooxdan ay carab gadatay ay Liverpool wax oo bulsay si dirqiya daqiiqadii lagu daray oo dheeriga macla waa dhamaadeen. markaas laacib Carvalho ayaa ugu shubay oo daayir ah kana soo baxay hadeertan daayirta kooxda Liverpool.